anila balame barbare biyo wale hele. kulanti wanaagsan waa barnaamijkii barbaarta iyo beeraha. waxaan maanta diiradda ku saari doonaa dalagga bariiska iyo goortii tacabkiisa laga bilaabay Soomaaliya, gaar ahaan webiga iyo hareerihiisa, tijaabooyinkii la dhigay iyo sidii wax soo saarka bariiska loo gaarsiiyey beeralayda joogta jiinka webiga ayaan barnaamijka ku ogaan doonaa. waxaa dhacday in International Rice Research Institute macadkan caalamiga ee bariiska International Rice Research Institute xaruntiisa ay ku taal Philippines ee dawladda Soomaaliya xiligaas ay ka codsatay variety la soo diray. waxaa wadanka si fiican u qabsaday laba variety oo ah IR 22 iyo 26. Productionkii bariiskana beeraleydii wuu gaaray. wax soo saarka guud ee bariiska, caqabadaha beeralayda ka haysta iyo sidii looga tashan lahaa tacabna loo daba dhigi lahaa ayaan qaybaha dambe ee barnaamijka ku eegi doonaa. barnaamijka waxaa marti ku ah Barash Shucayb Cabdullaahi Siyaad. waxa uu shahaadada bachelorka ka qaatay kulliyadda beeraha ee jaamacadda Banaadir, halka mastarkiisana uu ku diyaariyey takhasuska agronomy jaamacad ku taala dalka Bangladesh. waxa uu duruus la xiriirta beeraha ka bixiyaa qaar ka mid ah jaamacadaha gobolka Banaadir. kusoo dhawaada barnaamijka barbaarta iyo beeraha. anila balame barbare biyo wale hele. ambaxne badarki abuurne berihi anfalne. bariisku waxa uu ka mid yahay saddexda dalag ee ugu muhiimsan caalamka. waxa uu asal ahaan ka soo jeedaa wadamada dhaca koonfur bari Aasiya. qaaradda Aasiya ayuu caalamka intiisa kale uga soo faafay. wax soo saarka ugu badan ee caalamka waxaa soo saara dalalka China, India, Indonesia, Vietnam, Thailand iyo Bangladesh. Soomaaliya sidii uu ku yimid iyo goortii ugu horeysay ee abuurka bariiska lagu carro duugay waxaa barbaarta iyo beeraha u sharaxay Barash Shucayb Cabdullaahi Siyaad. bariiska Soomaaliya sida inta badan dadka khubarada ah waa naga horeeyay ee noo sheegeen, gaar ahaan dad specific ah la shaqeeyay xilligii uu bariiska ka bilaabanay tacabkii Soomaaliya. wuxuu u dhaxeeyay xilliga la bilaabay exactly wuxuu u dhaxeeyay badweyn 60 and 70 60 ilaa 70 oo dawladda xilligaas jirtay waxay sameysay waxa la yiraahdaa bilateral agreement heshiis laba geesood waxay la sameysay wadanka China. inkastoo heshiiskaas uu taabanay dhinacyo badan, specifically waxaa ku jiray in wadanka loo sameeyo bariis introduction loo sameeyo wadanka la keeno Chinese oo keeno. marka meelaha la doortay waxaa ka mid ah sida xustay Joarna waxaa reason loo doortay inkastoo wadankeena uu ka sameeyay temperature-ka oo bariiska uu ku bixi karo in general. bariiska waxaa optimum temperature ku baahan 25 degrees centigrade. optimum temperature-kaas wadanka oo dhan waa laga helaa, laakiin specifically waxyaabaha joor loo xusho waxaa ka mid ah soil ciid. maadaama ciid ay heavy tahay, ciid culus ay tahay, inkastoo gobolada qaar Shabeellaha hoosena uu ka baxay, Hiiraan uu ka bixi karo iyadoo ciid la fiirinayo. sometimes ciidaas heavy-ga waxay saacidaysaa in biyihii ay celiyaan, maadaama la dhahayo bariiskan wuxuu u baahan yahay in biyaha xoogaa dhex fadhiyaan ilaa xilliga uu ka soo go'ayo. marka xilliyadaas waxaa lagu sameeyay introduction. Chinese-ka keenay tijaabo wuxuu ka sameeyay meel la yiraahdo Baaro meel tuulo Johor u dhow, Johor ka tirsan banaankeeda Baaro weyn lagu bilaabay. xilliyadaas introduction lagu sameeyay success lagu soo baxay. laakiin caqabado badan jira oo waxaa dhici waayay waxa la yiraahdo intensification ama in la balaariyo wax soo saarka bariiska ama beeraleydii gobolka la gaarsiiyo qaabkii u tacban lahaayeen bariiska u horumar lahaayeen. marka gaab badan soo gal ilaa 80 wixii bariis meelahaas ka soo baxa ama meeshaas oo tijaabadan inta badan militariga dawladda isticmaali jirtay. dawladdii Maxamed Siyaad Barre 83 xilligaas waxaa loo bilaabay in bariiskii 83 in dib loo tacbo. gaar ahaan waxaa bilaabay wasaaradda beeraha iyo hay'ad oo Germany oo lahaay Action Against Hunger. hay'ad Germany iyo wasaaradda beeraha gaar ahaan qaybta extension
waxay isla bilaabeen in bariiskii dib loo bilaabo markaas waxaa laga keenay variety isla China kubi laakiin waxaa la ogaaday culaysyo badan inuu variety China laga keenay ay ka jireen marka gaaraan cudurkan plastic lab oo bariiska ku dhaca saameyn ku yeeshay marka waxaa dhacday in International Rice Research Institute macadkan caalamiga ee bariiska International Rice Research Institute xaruntiisa ay ku taal Philippines ee dawladda Soomaaliya xiligaas waxay ka codsatay variety la soo diray waxaa wadanka si fiican loo qabsaday laba variety oo IR22 iyo 26 labadaas si fiican wadanka loo qabsadeen IR22 iyo 26 productionkii bariiskana beeraleydii ugu gaaray oo beeraleydii extension loo sameeyay bariiskii tacabkiisa ay fahmeen oo joor bariiskii wuxuu ka noqday meel magaalo caan ku ah ilaa xilligii dawladda burburka ay gaaraysay heer waxaa gaar hataa joor u baxa magaca la yiraahdo xilligaas 1983 joor ama jidda dadweynaha waxa waa bariiskii ka soo baxay ee magaalada Jowhar dadkii beeraleydii lacag badan ka heleen oo waxa hektarkii markaas waxay ka helayeen 50 hektar kintaal ama in general waxaan dhihi karnaa 5 ton per hectare ama la ka soo baxday inkastoo low oo yahay according marka loo fiiriyo wax soo saarka maanta adduunka standardka oo ton per hectare ka soo bax oo wadamo badan hadda oo Faransiiska ka mid yahay heer waxaa maraa ton per hectare bariiska laga soo saaro 50 ton 50 ton per hectare oo bariis laga soo saaro annagana xilligaas waxaan ka hadlaynaa hadda 5 ton kaas wax weyn ahay marka burburkii kadib bariiskii xilligaas la hirgeliyay wadanka dib loo isticmaalay inkastoo xilliyadii burburka hoos dhac u kimid 96 kadib haddana dib u bilowday ilaa xaaladdan hadda la soo gaarayo oo hoos u dhiciis oo muuqdo nafaqada ku jirta carrada oo aanan la dhowrin abuurka bariiska oo muddo dheer carrada lagu dhigayay horumarina aanan lagu samayn nidaamka abuurista oo aan cabir ku habboon la isku dhexaysiin wasaaradda beeraha waaxdeeda fidinta oo aan beeraleyda siin tababaro kobciya fahamka wax soo saarka ay ku howlan yihiin beeraleyda yaryarka ah oo aan taageero dhinac waliba ah lala garab istaagin jidadka isku xira dhulka wax soo saarka iyo suuqyada oo tan iyo 1991 burbursan jidgooyooyin tiro beel ah oo aakhirkii dalagii oo daalan suuqa keena iyo tacbihii oo ciilan caqabadahaas oo idil waxay calaamad su'aal in hektarro kala tacbaan iyo in kala hordhigtaa beeraleyda xaqiiqdii wax soo saarka Soomaaliya ee bariiska dhibaatooyinka uu leeyahay wuxuu kala siman yahay badanaa dalagyada kale ee wadanka ka baxa galleyda iyo qamadiga gaar ahaan cafan qamadiga andina iyo sorgamta qamada badan wadankeena kama baxa inkastoo hadda la isku dayo in la keeno dhibaatooyinkaas marka waxa ugu badan waxa la yiraahdaa agroecological problems gaar ahaan biyaha waterka oo kale iyo ciidda soilka labadaas maadaama ay saameyn xoogan ay ku leeyihiin geedkii baxay ciiddina ay tahay meeshii geedka uu ka baxay biyihiina ay tahay wixii geedka uu ka baxay nutrientii uu badanayo geedka u baahnaa hadduu rabo inuu koritaan sameeyo marka waddankeena saan ognahay waxaa jira every 5 years waxaa jira massive drought drought aad u xigna wadanka jira biyo abaara wadanka jees abaarahaas marka waxay keenayaan inay biyo la'aan badan dhacdo waxaa dareemaysaa marka biyo la'aan ba'an ay jirto biyo la'aantaas ba'an waxay keenaysaa in la waayo factorkii ugu weynaay oo la rabay haddii la soo saaro gaar ahaan bariiskan lowland rice la yiraahdo bariiskan ku baxa waraabka irrigated rice marka taas waa hal problem another problem oo jira kale waxa kamid ah fertility ciid nafaqada ciid aad u hooseysa soil fertility oo taasna hal si looga bixi karo in soil fertility management fiican la sameeyo beeraleyda intaas ma hayaan oo ma sameeyaan ma ku adag tahay waxay isticmaalaan waxa way fertilizer and recommendation loogu bixin aan lagu talin intii ku dar lahayn ciidii intii la rabay ku dar lahayn hadda nitrogen phosphor iyo potassium intii la rabay ciidda lagu dar lahayn waxa laga yaabaa inay mararka qaar ka yareeyaan intii loo baahnaa beertaas hektarkaas ama 2 hektar oo bariiska ku tacbaayo nafaqadii loo rabay inuu gaarsii waayo mararka inta badan dhacda waana very common waxyaaba problems kala jira waxa kamid ah aqoonta
literacy ama knowledge-ka oo bariiska ama cilmiga bariiska in dalag ahaan loo tacbado taasna waxaa xooggeedii saameyn ku lahay ama la raba doorkaas inay ciyaaraan wasaaradii beeraha gaaraan qaybtii extensionka maadaama aysan hadda gobol wadanka inta badan dowladda ay si xoogan ugu shaqeynin gaabkaas xoogan ugu jira oo beeraleyda haysta beeraleyda waxyaabaha kale oo haysta kale waxaa kamid ah financial yaraan bariiska wax soo saarka bariiska saameyn ku yeelan hadiiba ninkii beeraleyda uusan helin wax deen oo beertii bariiska uu geliyo waa adag tahay mana jiraan bangiya hadda gaaraan specifically oo beeraleyda hadda laga yaabo hadda wadankan oo ka bilowday laakiin laga yaabo qaybtan sectorkan oo crop production-ka specifically in si fiican loo maalgelin gaaraan beeraleyda oo kale aan lagu dhiirigelin aan la dhihin lacaga deemaa inay haynaa oo wax soo saarka ku wadi kartiin bariiska another important factor waan dhihi karaa very important factor waaye oo wax soo saarka bariiska Soomaaliya maanta oo qabad xoogan ku haya hawa variety cultivar cusub ma jira ama variety cusub oo la tacbado nooc cusub dunyada waxaan ognahay in la sameeyo wax la yiraahdo breeding dalagga hadba loo fiiriyo dhibaatooyinka xilligaas haysta oo development in lagu sameeyo dalagga genetically kadibna laga gudbo saan ku sheegay 1983 variety la tacbay oo IR22 ama 26 up to now wadanka laga tacba almost 10 years hadaysa ka badan aba ka badan tahay 10 years hadda waxaan ku jirnaa 2017 waa almost 10 years soddon sano waxaa la tacbaa the same cultivar ama the same variety oo laga keenay Philippines ama IRR International Rice Research Institute taas waxay ku tusaysaa marka in yieldigi wax soo saarkii aad u liito taasna waxaa sabab ah the same cultivar intaas la isticmaalayo oo tayadiisii aad u liito waxyaabaha kale oo saameynta ku leh wax soo saarka bariiska ama problems ka haysta oo la taabo karo waxaa ka mid ah inputka bariiska loo isticmaalo gaar ahaan fertilizerada nafaqooyinkaas wadanka la keenayo waxaa dareemaysaa in fertilizeradii loo baahnay qaar ka mid ah aysan badanaa la keenin ama beeraleyda aysan garanaynin si u isticmaalaan ama la gaarsiinin inputka waxaa soo gali kara pesticideska ama si loo kuwii disease-ka lagula dagaalamayo waxaan ognahay in disease iyo pest ay yihiin laba factor oo muhiim ah haddii dalag la tacbayo dalag walbo la tacbo ama galley ha ahaado ama masago ha ahaado ama qamadi ha ahaado disease-kaas saameyn uu ku leeyahay iyo pestiskii iyo disease-kii inputkii lagula dagaalami lahaa ama fertilizerkii lagula dagaalamahay cafan pesticide-kii lagu dagaalamahay labadaas cudur ama pestiskaas gaar ahaan oo guud ahaan la isku dhaaf pestis meesha waxaa waaye doorkiis waa ka maqan yahay hadduu jirana waxaa waaye ma ahan wax saxan oo recommendation sax ay ku bixiyaan dadka agronomiga ama cilmiga beeraha yaqaan ee dooskaas hala isticmaalo ama dooskaas khaldan la isticmaalayo wuxuu ka imaan karaa inuu cudurkii noqdo gaarahan insecti inuu noqdo resistant cayayaanki u adkaysto wixii la siinaya ama in la soo celceliyo asiga la isticmaalo la celceliyo lagu celceliyo inuu noqdo resistant mid adkaysi leh oo iska celinayaba oo suntiiba waxba aan ka tarayn oo sumahaas la isticmaalayo problem marka disease-kaas iyo best gaar ahaan insecti waa major problem gaar ahaan insecti waa major problem Soomaaliya waxa soo galaya shimbiriya soo galay bariiska markuu oo harvesting ka gaaro ama xilligii greenkii markuu saaro waxa arkaysaa shimbiro badan oo imaanaya dadkii beeraleyda dhib badan ay ku qabaan shimbirahaas qaabkii u controlaya hadda aragto dhib badan ay ku qabaan waxay isticmaalayaan waxyaabo manual waxay yiraahdo barxoor ama xarig inta waraf inta la isticmaalo dhooq inta la maaso sida dhagax laga dhigay kuwaas la isticmaalaa waxa lagu dagaalamaa shimbirti oo ma jira in other technology ama in other system ama in other method ama qaab kale oo lagu dagaalamo ma jira waxay ka dhigteen qaabkan waxay ka dhigteen xal kan waxa waaye xoogaa ku meesha ku baxay waqtiga ku baxay waana wax effective ma soo saas dhibkaas badan ka maraayo adan waxa arkaysaa in shimbirti ay baati ka cunayso marka problemska kuwaas waxaan dhihi karnaa agronomic problems gaar ahaan kuwa hadda aan ka hadlayay disease-kaas iyo cultivar-kaas another problems aa jira oo saameyn ku lahaan kara maanta climate-ka isbedelaya cimilada adduunka arkaysaa in Soomaaliya roob la-aan badan ay ka jirto roob la-aantaas
dhibaato weyn ay ku leedahay bariiska wax soo saarka Soomaaliya. gunaanadkii caqabadahaas oo aan ka soo sheekaynay xalkoodu waa maxay? waa kan Barash Shucayb Cabdullaahi Siyaad. waxyaabaa lagu horumari kara bariiska wadankeena waxa soo galaya in wadanka la keeno cultivar cusub ama dalagyo cusub ama noocyo cusub oo bariiska kuwaasoo ku fiican waxa la yiraahdaa environmentka Soomaaliya ama giga Soomaaliya. dalagyadaas marka waxaa laga yaabaa ama varieties waxaa laga rabaa inay noqdaan kuwa oo drought tolerant ama kuwa kala abaaraha ama biyo yaraanta. waxaan soo sheegnay in lowland rice-ka noocyada loo tacbay ay ka mid tahay irrigated iyo rainfed specifically in la keeno variety rainfed kuwaas waxay naga saacidayeen inaan geyno goboladii kale aan lahayn webiyada goboladii kale aan webiyada marin in la geeyo si wax soo saarka bariiska loo balaariyo oo kuwaas ay ka faa'iideystaan qaabkii ay rainfedka bariiskii rainfedka ah oo irrigated ka ahayn varieties noocyadaas in la keeno taasna waxaa lagala kaashan karaa dowladda oo gaas inta badan xoogeeda waxa iska leeyahay horumarinta dawlad institution dawladeed gaar ahaan wasaaradda beeraha doorka ciyaar lahayd waa in bariiska gaar ahaan variety wadan ku habboon la keeno waxyaabaha kale muhiimka ah hadii la rabo in bariiska la horumariyo waxa kamid ah in investment fiican la sameeyo maalgashi waxaan arkaynaa ganacsatada Soomaaliyeed in ay qarash badan lacag badan ay ku bixiyaan inay bariiska soo raraan India iyo China iyo wadamada la midka lacagaas isticmaalayeen ama faa'iidada profit ka soo gala maanta waxay u isticmaali karaan inay ku horumariyaan production technology bariiska wadankan investment inay ku sameeyaan waxyaabaha liidaya bariiska ka bax Soomaaliya gaar ahaan specifically degmada Joor bariiska soo baxa waxyaabaha liidaya waxa kamid ah post harvesting marka soo gaha magala soo gooyo kadib processing la marsiinay machinery sax ma yaalo ama warshado fiican oo saxan ma yaalaan oo warshadahan la isticmaalo waa makeshift waxa jira makeshift oo kuwa ku meel gaar oo motor iyo hal qof ilaa qof ka shaqeynayeen marka haddii investment ay ku sameeyaan production technology and post harvest management bariiska waxa laga yaabaa in wadankeeni intaasoo bariis oo ka soo bax quality-giisa fiican yahay ganacsigana wadanka u fiican aan gaarleen heer aan ka maqan wadamada Afrika isku dayaya inay bariiska horumariyaan ama ay dhoofiyaan Soomaaliya ay bariiska soo baxay unaga badnaa lahayd wadankan maadaama population-keena iska yar yahay waa dhoofin ganacsi uu noqolahay waxyaabaha kale lagu horumari karo waxay kamid tahay in beeraleyda la siiyo tababaro ku saabsan sida loo tacbo bariiska taasna waxaa iska qaybta extension wasaaradda beeraha lana baahan yahay ka qayb qaadan karaan shakhsiyaad kale oo iyaga isxilqaami way ka qayb qaadan karaan ama NGO-yaha ka socdaan ama hay'adaha caalamiga ka socdaan ama dawladda caalamiga inay ka qayb qaataan qaabkii beeraleyda loo gaarsiin lahaa knowledge-kii bariiska ama tacabka bariiska qaabkii uu horumar lahayn waa sheegay in technology uu xun yahay waxyaabaha kale lagu horumari karo waxaa kamid ah in wadankii la keeno qalab ka bariiska gaar ahaan hadii ilaaleed tacabkiisa abuurkiisa iyo soo goosashadiisa waayo in harvest lagu sameeyo waxaa labor intensive xoog u baahan bini'aadanka shakhsiyaadka hadii galaan waqti badan ay qaadanaysaa laakiin hadii combine harvester la isticmaalayo bariiska gaar ahaan kuwa loogu talagalay machinery loogu talagalay in bariiska harvest lagu sameeyo wax badan loo sameeyo shaqo badan oo yareelaya waxyaabaha hadda beeraleyda ay sameeyaan waxaa kamid ah in geedkii jaraan geedkii intay jaraan ay soo qaadaan meel banaanka keenaan oo kadib ay ku garaacaan ulay ku garaacaan haddii combine harvester la keen lahaa beeraleydaas combine harvesterkaas wuxuu sameyn lahaa inuu geedkii jaro gareenkiina soo saaro gareenkii iyo geedkiina kala saaro meeshii waqti badan uu safe garow lahay wax badan waxa lagu sameyn lahaa harvesting combine harvesterkaas la isticmaalayna wuxuu dhiirigelinayaa tacabkii la balaariyo production knowledge-kii beeraleyda in kor loo qaado oo adeecaleed aqoontooda gaar ahaan wax soo saarka iyo guud ahaanba aqoontooda in wax kor loo soo qaado waxyaabaha lagu horumarin karo kamid tahay wadankeena beeraha iyo guud ahaan wax soo saarka wadankeena beeraha bilcaantii aan la baashalnee daawadayaal waxaan u mahad celinayaa sidii uu inooga aqbalay inaan ku casuunay barnaamijkan Barash Shucayb Cabdullaahi Siyaad oo duruus la xiriirta beeraha ka bixiya qaar ka mid ah jaamacadaha gobolka Banaadir barnaamijka waxaa soo saaristiisa gacan iga siiyay saaxiibkay Xuseen Faarax Cabdulle anigoo ah Cabdishakuur Ibraahim Cabdi ayaa idila socodsiinayay tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo iyo tasho oo tacbo bilcaantii aan la baashalnee
bal wa aantu nabaa la dheelno kuma baanan karne inan baar aan tagno bilcaantii aan la baashalne bal wa aantu nabaa la dheelno kuma baanan karne aan isbarno inan beer falano aan ku baahi baxne aan isbarno inan beer falano aan ku baahi baxne